madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo wareysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay maraysa doorashooyinka lagu ballansan yahay 20 Agoosto ay ka dhacdo magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in macquul ay tahay in dib ay u dhici karto doorashada. anaga waxaan jeclaanahay in xilligeeda ku dhacdo laakiin muuqaalka hadda jira inay wax dib u dhici doonaan ay tahay laakiin waxaan rabnaa ugu yaraan 20 bisha inaan haysan baarlamaanka inoo dhigo. xulida xildhibaanada waxaa loo sameeyay criteria ciddii criteria-daas aan buuxin in la soo celiyaa waa wax sax ah laakiin waxaa la diidaa in ay ballaarsadaan guddiga oo ciday rabaan ay celiyaan ayagoo ka fiirinayaan arrin siyaasi iyagoo ka fiirinaya. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxaa weydiiyey halka ay ku dambeeyaan musuqmaasuqii lagu soo odeeyey dowladda uu madaxda ka yahay. riboorkaas waxaa diyaariyay dad Soomaaliya dhibaatadeeda ku faraxsan ka naxsan inay dhibaatada ka baxdo. Soomaaliya dhaqaale corruption lagu gala ma aha, dhaqaalena ma jirin, hawsha tiirna aad u farabadneed, dadkuna waxay ku shaqeynayeen inay naftooda u huraan iyo waqtigooda taasaana dowladda madaxda ugu sarreysa ilaa askartu ay ku shaqeynayeen. marka ujeedadu waxay ahayd in kalsoonida la dhaawaco dadka waxaan lagu soo aadiyay waqti aan doorasho galayna iyadoo ujeedada laga leeyahay ujeedada. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxaan weydiiyey sababaha ciidamada militariga ee dagaalada culus la galay xarakada shabaab wal mujaahidiin ay uga maqan yihiin mushaaradkii ay qaadan lahaayeen. mushaaradka bilaa ay naga maqan yihiin jira laakiin dadaalkooda Cabdirasaaq Miro Dhoore, Hon Cable TV, Muqdisho.